سيرة صوبنها صلى الله عليه وسلم نصبك رسولك صلى الله عليه وسلم سيد لو دوكسونيا وحو قال نبي الله إسماعيل أو دلي نبي إبراهيم أبترسي رسولك وحو نقنيا سيدة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة بن خصيمة بن مدرك بن إلياس بن مدر بن نسار بن معد بن عدنان رسولك صلى الله عليه وسلم جلب كيس وحالو أقون جري رير بن هاشم وحان الله مقعدري أبوغيسي لباد هاشم بن عبد مناف وحو ورابين جري حجيدة أو آبيهيسي عبد مناف كدحلي sidoo kale wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee jideeyay labadii safar ee suuratul quraysh sheegtay oo ay quraysh u kala safri jirtay Shaam iyo Yaman Haashim wuxuu dhalay 4 wiil oo kala ahaa Asad Abu Sayf Nadla iyo Abd Muttalib iyo 5 gabdhood oo kala ahaa Sharaf Khalida Ta'ifa Ruqiya iyo Junna waxa sagaalkooda ugu yaraa Abd Muttalib oo ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam awowgiis عبد المطلب وحو دلي 10 ويل iyo 6 gabdhood عبد المطلب wuxuu noqday nin cajiib ah oo Quraysh oo dhan ka tilmaaman wuxuu noqday odaygii Quraysheed sida la ogsoon yahay wuxuu leeyahay qisooyin caan ah oo kala duwan halkan aynan ku soo koobi karin waxaana kamid ahaa duulaankii Abraha iyo qodidii Zamzam kuwaas oo isaga iyo Qurayshba Ilaahay ugu gargaaray siirada suubanaha sallallahu alayhi wasallam